السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلنتي وعنا وناكسن كسر دوادا برنامجك دلنيردا oo isbuuc kasta aad ka daawataan Ansel TV maanta waxa marti igu ah barnaamijka dhalinyarada Xasan Ismaaciil Maxamed oo loo yaqaan Xasan Sunni oo maanta aan ka wareysan doono doorka dhalinyarada siyaasadda Soomaaliya ay ku leeyihiin Xasan oo kugu soo dhaweynaya barnaamijka dhalinyarada Ansel waa mahadsan tahay waa dhowahay waanu ku dhowahay Ansel TV waanu ku faraxsanahay mowduucan khuseeya dhalinyarada iyo horumarkooda dalka inaan kula falanqeeyo maanta aad u mahadsantahay وهاجاج حسن عاد بدو ما حسن تهاي سيد قروح بدنا برامج كجلا قيب قادنا يصير موضوع وجوه الرأي انتهينا نجلين بل ضد كينا إسبرتيد هير كاجا واحد برشة يدور كادي لفت كاجا ما دام النيرة هاي عندك السياسة كل هذا هاي مركل وما حسن تهاي أنزل مجرى صاد هروش كتابة وحسن إسماعيل محمد أو لو يقان حسن سني المدة لواتن سنة كل واحد هذا وحندقنا مجال السياسة اللي راهو دول واشنطن waxbarashadeyda inta badan waxaan ku qaatay dalkaas Mareykanka waxaan bartay cilmiga loo yaqaan IT ama information technology haddana wadanka waxaan joogaa adigu labo bilood ayaan joogaa waxaad ogtahay in dhalinyaradu ay yihiin lafdhabarka ummad kasta Soomaaliyana maanta waxa kaliya badbaadin kara anigu sida ila tahay waa dhalinyarada marka waxa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo nafsadooda halis وجلي سيدي وطنك أو قسمة بحنا هايين دباتوينك صدق سنة قاتي إلا هذا وكجرو مركا وجدد وجوين سفر كيجان وحد دارنا إن عن النيرة الصوماليات عن يرجليو إن يكون يردان إن وطن كسر لابتان أو لنا عجنا عسجا يو لنا كقاصة بلع الدلكة يولي لنا السياسة دوا إن يدور في عن أو حكوا لك قاتان سيدنا تصالوا ونحن نقول لها أيام ودن كوسا لقتي وقتين هذا وهاجاج عاد بعد وجمع حسن تاي سيد قروح بدنا حوجا فاهين أو قصي سي ولي بينا دلكاجي أما وصل لابتين على النيرة ده اللي يجي لسه ولي بدنا كسياسة ده حسن وحاجر توايد وجودن بينا النيرة عاد وفر بدنا أي وحصاب برتين ولي بدون النمذن أي واحد بدنا أي قيب كقاتين دورك يعقبها هرتاجن أو لديه كرر النيرة ده إن السياسة ده كقيب قاتهم حيابا بدن بهرتاجن محاكم مدى لسليه كرا هذه سؤال شهادة نسكته إن أنا كجوابه وحنقولنا هاي دنيا بدن إن الدلك دي أوجس واللابتين أو قربها كيميت سيدو كل وحن إنكري كرين إن الجيران دنيا بدن أيجانا ودن جديد وحكو برتي أو ولي بس يبقى وحكو صوب برتي أو ودن كقيب قاتي إن يدب صنع ليان هيكل كي الدولة نمو دنيا رضاس وحيابها أي سوكر ديان وحكم إذا ganacsiyo yar yar oo ay ku soo arkeen wadamadaas dibadda oo ay wadanka ka hirgeliyeen qaar kamid ah waxay sameeyeen organizationno ka qayb qaadan kara dib u dhiska dalka xagga siyaasadda dhalinyaro badan ayaa waxay uga muuqdaan qaab adiga aan aad u muuqan laakiin waxbay qabtaan la taaban karo caqabada ugu daran oo anigu aan isleeyahay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed waa ay hortaagantaan waxa weeye nidaamka qabiil wax ku qaybsiga dawladda Soomaaliya ayaa dhalinyaro badan oo wax baratay inay siyaasadda ay galaan hortaagan laakiin waxaan anigu ogahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay wax bartay ama qurbaha joogan ama waddankiisa joogan ay ka go'an tahay in ay door la taaban karo ay ka qaataan siyaasadda dalka iyadoo caqabadaha ay badan yihiin waxa anigu aan in badan la sheekaystay dhalinyaro badan oo qaarkood political science ka bartay oo wadamada Yurub oo kale ka soo laabtay oo wadanka gaar ahaan caasimadda jooga in muddo sanadaha qaarkood wadanka ay joogaan waxaan u suuragali lahaa in ay heerka ay rabeen ay siyaasadda ka qaataan markaad weydiisadna waxay ku sheegayaan inay tahay sababta caqabadan loo yaqaan 4.5 oo laga yaabo asaga wixii uu soo bartay hadduu shaqo ku raadsan lahaa in la yiraahdo hebel oo aad isku qabiil tihiin ayaa booskaas hore u sii jooga taasna ay keento in uu qofkan wax soo bartay oo rabo inuu wadanka wax ka qabto oo yaani waxyaabo kale oo u qalmin oo aado ama shaqooyin kale oo biilashiisa bixin kara oo iska raadsado laakiin anigu sida ila tahay haddii doorkaas 4.5 ka laga baxo oo qof walba aqoontiisa iyo yaani sida uu u awoodo inuu wax u qabto yaani shaqada lagu siiyo in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay siyaasadda wadanka ay door fiican ka qaadan lahaayeen ay ila tahay
waxyaabaha anigu hadda xoogaalka waxaa ka mid ah in ay jiraan organizationo badan oo mideeya dhalinyarada Soomaaliyeed haddaan tusaale u soo qaato waxaa jira organization la yiraahdo Somali Professionals Network oo meelo badan oo caalamka ka mid ah dhalinyarada isugu imaaday hadday ahaan lahayd Europe America iyo waliba wadamada Asia dhalinyaro wax ku barata isugu imaaday ujeedkooduna waxa weeye inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhiirigeliyaan in ay door la taaban karo ka qaataan siyaasadda dalka laakiin waxaad moodaa xagga ammaanka ayaduna inay caqabad kala tahay laakiin saas ay tahay waxaad og tahay 3 maalmood ka hor in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo wax soo bartay oo waddanka dib ugu soo laabtay lagu laayay iyagoo isku dayaya inay wax ka qabtaan ama wax ka bedelaan dalka Soomaaliya caqabadaas way iska jiraan laakiin caqabada ugu weyn oo anzalay aan maanta ku sheegay waxa weeye caqabada nidaam wax ku qaybsiga qabiilka ee Soomaaliya ayaa dhalinyaro badan ka hortaagan inay door la taaban karo ka qaataan siyaasadda dalka وهاجاك حسن وحياة بدن قد كده واجسو دور كده نيرده عقباتها بدن وكيني كره محارب الله بالسؤال وده كده واجسي أو أهيد نيرده عقبات وجوهنا كورتاعهم حويا 4.5 كات أديك كحسن أهان سديوات سديه كرت نيرده وجب حكران قيب تاسو 4.5 كات يوليبا نيرده ورده يكون مديسين أيجلف تقول إسكجوا وعي جلين كران أو دور كاس أو وجب حكران طلبات كله وحيد tahay aad ka dhawaajisay dhalinyaro baa hadda usbuuci la soo dhaafay ku dhimatay xamar oo qaraxii ku dhamaaday oo qaarkood dibadaha wax ku soo barteen ma la isdhihi karaa dhalinyarada kale ee hadda maanta wax soo barteen inay wadankiiba caqabad ku noqoto inay wadanka wax u qabtaan cabsi ka jirto in dhalinyaradii badneed ee maalintood meesha ku dhamaatay caqabad u noqoto ayada laftigooda dhalinyarada haddii aan ku hormar su'aasha qaybteeda hore caqabada 4.5 ka aan hore ugu shanqariyay waa mid Soomaaliya dhammaad og tahay in dhalinyaradu ay hor taagan tahay inay wax ka bedelaan siyaasadda dalka Soomaaliya caqabadaha saan hore u sheegay waxa ka mid ah in hadduu rabo inuu wasiir noqdo qof dhalinyaro oo daacad ah oo laga yaabo qurbaha inuu ku soo yar lagay ama ku dhashay ku soo bartay oo aan qabiil aqoonin inuu wasaarad yani rabo inuu qabto waxa aad og tahay in la leeyahay wasiir hebel oo aad isku qabiil tihiin ayaa jooga taasna caqabad inteeda la eg laga yaabo wasiirkaas meeshaas jooga in uusan meeshaas aqoon ku tagin wax yaani qabad la taaban karo oo qabtan aanu ku tagin laakiin uu ku tagay nidaamka hore aan u sheegnay hadda dawladda Soomaaliya ku dhisan tahay caqabada ugu weyn horta waa taas dhalinyaro hor taagan dhalinyarada Soomaaliyeed ee professionals ee wax bartay ee aan qabiilka aqoonin ay rabaan inay Soomaaliya u adeegaan way qaateen khatar fara badan ay qaateen in wadanka dib ugu soo laabtaan waxaad og tahay ilaaha u naxariistay kuwa hadda aan ka shanqariyay imaan hal meesha lagu laayay kuwa badan oo hore loo laayay oo wadanka dib ugu soo laabtay oo ganacsiyaha hal abuuro caalami ah oo caalamka ay ku soo arkeen ka hirgeliyeen sidoo kale ayagoo wadada iska maray madax laga wada toogtay waad og tahay caqabada marka hor taagan dhalinyarada inay wadanka dib ugu soo laabtaan badankood haddaad Soomaaliya tagtid oo kale tusaale ahaan waxaad arkaysaa dhalinyaradu inay ku leeyihiin meeshan waxaan u imid inaan siyaasadda galo waxaan u imid inaan ganacsi ka abuuro laakiin caqabada ugu weyn oo hor taagan labada caqabad oo hor taagan waxa weeyaan nidaamka qaybsiga dawladda xagga qabiilka iyo amniga sababtoo ah ninkan dhalinyarada ah wuxuu ka baqayaa nafsadiisa inay halis gasho haddii uu wadanka sii joogo taas waxay keenaysaa markaa in uu markii ujeedadii uu lahaa uu yimid wadanka ay hirgal weydo inuu iskaga laabto meeluhu ka yimid ayaa dhacda kuwa wadanka jooga ee wadanka wax ku bartay ayagoo nafsadooda halis u galiyana badankooda cabsidaas way qabaan waxay ku leeyihiin haddii aan meelahaas oo kale aan wax ka raadiyo waxa laga yaabaa nafsadeeda inay khatar soo gasho marka shaqooyin iska hoose biilashiisa oo kale uu ka raadsan karo ayuu qofkii wadanka gudihiisa joogay wax bartay ayuu iska raadsanayaa marka caqabada labaad ee ugu weyn waa xagga amniga hadda dhalinyarada daraad ilaahay wadan xariisto meesha lagu xasuuqay waxay ahayn dhalinyaro qaarkood aniga aan aqaan shakhsiyan oo aqaano oo vision ama aragti fog wadanka kale ay ahaayeen oo markaad la sheekaysid ku sheegaya inay doonayaan xataa inay hoggaanka ugu sareeyo dalka inay qabtaan kuwa ka mid aha ayaa halkaas ku dhintay oo lagu laayay waadna garan kartaa marka aad meel dagaal inuu ka dhaco oo xabado la isku rido aad iska ilaalinaysid iyo markii aad iska ilaalinaysid
qof adigoo kale kuwa oo kalarkaada kale leh oo adigoo aan laga aqoonin oo agtaada inta soo fadhiyo shaah dalbada isqarxiyo yani cabsideeda waa dareemi kartaa marka taasna caqabad waxa weeyaan labada ogyahay indhaha laga qabsan karin laakiin waxaas oo dhan waxaan aaminsanahay inayna noqonin excuse waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in wadankan aan ka dhalanay Soomaaliya ayaguna u baahan yahay aaminsanahay waxaan aaminsanahay inay nafsadooda halis u galiyaan sababtoo ah haddii aan khatarta la qaadanin isbedel ma yimaado waxyaabaha aadka oolaya waxaa ka mid ahaa qorbaho kale wadamo badan oo tegey waxaan ku arkay dhalinyaro badan oo ku dhahaysa doorkeena ma aha waqtigeena ma aha waqtiga siyaasadda aan gelay ma aha marka wuxuu sugayaa qofkaas oo kale wuxuu sugayaa in qof isaga la mid intuu wadanka tago inuu wax u hagaajiyo oo hadhow arintii hagaagsan oo wadankii uu wadada ku dhacay uu ku soo laabto marka taasna wax wanaagsan ma ahan marka waa in si risk la qaato wadanka lagu laabto shaqooyinka iyo raaxada lagu haysto qurbaha inta laga soo tago laga fikiro horumarka guud ee dalka iyo dadka Soomaaliya وهكذا حسن هذا وما سنتهاي سؤال حكتان كويدين يحتاج ما أنت ودكتها ودنك الصومالي دورش وكشرا ودورشان وصفولة ما أنت عديم مدحوينه لما يرى ودنك قطب محوك جبد دلان كلا كوي هراس بنسا وحنا أمسنا هاي وحيوان بدن عالمكو حلقة قانا وحلي هذا 55 بلاس ولو جيدو كونتنيشن iyo wixii ka zaayida dadkaas waxa lagu tiriyaa inay yihiin dad yani soo daalay hatta haday ahaan lahayd dhinac kasta oo nolosha ah laakiin 55 iyo wixii ka hooseeya waxa lagu tiriyaa dhalinyaro qofka markuu dhalinyaro yahayna uu ka fikir iyo maskax caafimaad qaba qofku waa yeelka ah hadaad fiirisid runta in laga hadlaa fiican dalkeena Soomaaliya siyaasadda waxa la haray waa dadkii yani jiilasha naga horeeyay waaye hadda meel kastoo fiirisid waxa weeyaan siyaasadda waxa raangareeya ama wada siyaasadda Soomaaliya waa dad yani la rabay inay retirement ama ay ka fadhiistaan shaqada la rabay waaye dhalinyaradu waxyaabaha excuse-ka ama cudurdaarka ay raadinayaan way ka mid tahay inay ku leeyihiin meel aan ka soo galnay siyaasadda ma lahan sababtoo ah odayaal ayaa meeshii fadhiya saan hore u sheegayna taas ma ahan cudurdaar la qaadan kara ma ahan marka anigu waxay la tahay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay waxyaabo badan uga fiicnaan karaan dadka hadduu qabto talada dalka ugu sareyso in dhalinyaro ah oo wax bartay oo aan qabiil ku soo korin midda koowaad waxa weeyaan Soomaaliya oo dhan u siman oo ilaa qof qabiil meesha ku mid ma ahan midda labaad waxa weeye waa qof wax soo bartay oo professionals laga yaabo caalamka kale inuu soo arko wadamo badan iyo qaabkii u dhisan yihiin iyo qaabka ay maarto u shaqeeyaan soo arkay laga yaabo way taasna waxa laga yaabaa inay keento inuu wadanka hore u qaado ayaa laga yaabaa marka taa macnaheedu ma ahan in la waayo yani qof weyn oo waayeel ah ama laga yaabo inuu 60 ama 70 sano jiro inuu wax qaban karin macnaheedu ma ahan laakiin qofka markuu dhalinyaro yahay waa uu ka firfircoon yahay qofka weyn uu ka firfircoon yahay laakiin anigu hadda rajo badan igama wajirtaba in dhalinyaro ah oo laga yaabo inuu 35 ama 40 ama 50 jiro inuu madaxweynaha Soomaaliya qabto hadda anigu rajo badan igama jirto laakiin rajada igu jirtaa waxay tahay in ay dhalinyaradu ay macnaha wadanka dib ugu soo laabtaan oo ay horta xogaal u noqdaan qaabka siyaasadda Soomaaliya ay u shaqeyso oo ay albaabo badan qaraacaan oo ay saas ugu faafaan maxaa la yiraahdaa horumarinta dalka ayaa anigu qabaa laakiin qofka hadduu inta qurbaha iska tago uu yiraahdo marka wadanka la islaaxiyo ayaan muxuu ahaay tagay wadanka wax dee aqli gali kara ma ahan nafta hal mar bay wadaal laha marka qofka dhalinyarada inuu wadanka dib ugu soo laabto oo risk qaato waxyaabahan uu leenahay inta hadda aan joogo wadanka ayay ka mid tahay runtii waxaana jira adan kugu sidaraya anzalay dhalinyaro badan oo aan xiriir leenahay jira oo aad ogtahay caalamka maanta wuxuu noqday qariya oo aad u yar u noqday oo aan group ku kala jirnaa jira waxyaabaha naga go'an waxa ka mid ah oo aan hadda ka tashanayno in la abaabulo oo la sameeyo kacdoon ah dadku wax bartay anigu dhalinyaro ma dhahayo dadka wax bartay oo aan qabyaalada lagu tuhmaynin oo lagu tuhmay daacadnimo iyo alla ka cabsi wanaag badan lagu tuhmay in wadanka dib ugu soo laabtaan oo ay wadanka wax badan ka bedelaan kacdoon aha socda anigu waxaan aaminsanahay waqtiga hadda la joogo waqtiga ugu wanaagsanayd kacdoonkaas ama abaabulkaas lagu dhiirgelin dhalinyarada la sameyn lahaa inuu yahay sababtoo ah 6 sano ama 4 sano hadda ka hor siyaasadda wadanka in qof daacad uu soo gal way adkeed laakiin hadda waxaad moodaa
in loo siqaayo ama loo sii dhawaanayo waxa la yiraahdo one man one vote in loo sii socdaad muddaa taasna waa jaanis u soo dhawaaday dadka daacadda ah ee raba inay ragnimadooda iyo dadaalkooda ugu ordaan kuraasta ugu sareysa dalka marka waxaasna waxa ka horeeya horta in isku xir guud oo dhalinyarada ama qurbaha jooga ama waddanka gudihiisa jooga ee daacadda ah la sameeyo waxyaabahan ku dadaaleen waxaa ka mid ah hadda aan sameynay organization la yiraahdo Somali Professionals and Students Hub marka ujeedadan waxa weeye in xataa la garab qabto si loo soo nooleeyo ardayda hadda jaamacadaha ku jirta ama iskuulada hadda ka soo baxay in la garab qabto oo lagu xiro dhalinyarada kale ama dadka ayaga ka horeeya xagga professionalska si ay u noqdaan dad isku xiran oo hadhowna u suura gasho inay waddanka Soomaaliya wax ka bedelaan waxaan ognahay dalkeena Soomaaliya maanta dhibaatada ka jirta waxaan u maleynayaa caalamka meel ay ka jirto ma jirto haddaad fiirisid dhulka ay nimcada aan haysanana inta laagto waa ogtahay dad haddii la fiiriyana waxa weeyaan tirada dadkeena waad ogtahay waa dad aad u yar 20 milyan wax ka yar lagu qiyaasaa marka opportunity badan waxaa jira u bannaan inay dadku wax bartay saafiga ee waddanka wax uga bedelaan marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay wax badan ka bedeli karaan haddii waddanka dib ugu soo laabtaan وهجاج حسن waxaan rabaa hal su'aal oo kalena waan ku weydiinayaa hal su'aal oo aan marka hadalkaaga aan ka dhaxleen oo ah in madaxweyne dhalinyaro ah uu xilka qabto aniga ma aaminsanay ama macquul ila ma aha baatri maxaa diiday inay dhalinyaradu ay noqdaan isgarabsadaan oo siyaasadda Soomaaliya ay ka soo dhex muuqdaan si bari ka maalin ayaga laftigoodii waxbay soo barteen waa dad aqoon leh inay xilkii u tartamaan madaxweynaha laga yaabo nasiibkoodu inuu siiyo maxaa u diiday maadaama dhalinyarada dhan ay ku xidhan tahay ma u maleynayo Soomaaliya qof dhalinyaro ah inuu xilka qabanayo su'aasha kale aan ku weydiinayo waddanka Kenya ku suganahay arrimaha siyaasadeed ee diblomaasiyadda u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ka dhalinyaro ahaan adiga sidaad u aragtaa sababta aan u leeyahay qof dhalinyaro ah yaani waddanka hadda rajo badan ka malaha waxa weeye horay waxyaabihii aan uga soo sheekeeyay oo ay ka mid ahayd saami wax ku qaybsiga siyaasadda Soomaaliya oo hadda khariban oo aan isleeyahay dhalinyaradu inta badan ma rabaan inay shaarkooda ku haleeyaan qaabka hadda siyaasadda Soomaaliya wax lagu qaybsado oo ah in qofkan qabiil uu matalo dhalinyaro badan oo aniga aan aaminsanahay oo daacad ah ma rabaan inay saas hadda maanta ay xilka ugu sareeyo waddanka ay ku qabtaan sida ay la tahay boosna ogma banaana oo maanta waxaad arkaysaa in dhalinyaro oo saafi ah hadduu soo sharaxo uu yiraahdo madaxweynaha isku sharaxaya waxa laga yaabaa hal ama laba cod inuu helo ama uuna waxba helin ayaa laga yaabaa marka taasna waxay keentay rajo yari ah in dhalinyaradu ay ku dhiiran waayaan inay isku sharaxaan madaxweynaha waddanka Soomaaliya u fiirso hadda maanta oo kale waxaad ogtahay in sodomeeye ka badan ay soo sharaxday yaani nin dhalinyaro kuma jiro waa niman wada yaartii qaarkood siyaasadda Soomaaliya soo wada maray oo wax soo arkay ay u badan yihiin laakiin dhalinyaro maanta la leeyahay Oxford ama jaamacadaha caalamka Yale ayuu ka soo baxay oo dhalinyaro ah oo la leeyahay madaxweynuhu soo sharaxay rajo fiican uu leeyahay ma jirto marka laakiin wixii hadda ka dambeeyo saan hore u sheegay waxa loo siqayaa one man one vote ama qof walbo iyo wuxuu heli karo ayaa loo siqayaa taasna waxa laga yaabaa inay rajo badan ay geliso dhalinyarada Soomaaliya marka qaacido waxa jirta ah la dhahaysa rajada lagama quusto markas rajada in laga quusto dhalinyarada aan kulmo taliyo oo dhalinyarada waxaan ku dhiirigeliyaa inay risk qaataan oo nafsadooda halis geliyaan oo ay waddan ku soo laabtaan oo ganacsi hal abuur ay la yimaadaan because waddankan wuxuu sugayaa dadka wax bartay iyo sugayaa marka laakiin xogaa rajada ah in 2020 ama 2000 iyo maxaa la yiraahdaa 24 in dhalinyaro ah oo 55 ka yar oo madaxweyne waddanka ka noqdo xogaa aanu rajaas ugu badnaa because waddanka hadda muddan soo joogo waan soo arkay waxyaabo badan oo xogaal u ahay xagga siyaasadda Soomaaliya xogaal u ahay marka rajo badan iguma jirta dhinacaas laakiin wixii ka dambeeyay markii la gaaro nin walba oo nafta iyo codka heli karto laga yaabo dhalinyaradu inay rajo yeeshaan su'aasha qaybteeda labaad ee ah siyaasadda cakiran ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya sadar muuqdo waxa la dhahaa sharaxaad uma baahna siyaasadda waddankeena iyo Kenya anigu sida ay la tahay waxay ka soo bilaabatay xagga muranka badda ay salka ku haysaa yani in inta gurigaada lagu imaado alaabta ku taala fadhiga iyo sariiraha la iska rarto oo aad ka aamustid xogaa waxa weeye waa dadnimo xumo weeyaan marka in madaxda ugu sareysa dalkeena ay muujiyaan inay qaabkaas Kenya ay wax u wado inay
aysan ku qanacsaneen anigu dhibaato ma arko waxaan u arkaa wadaninimo waxaan u arkaa yani dal jecel ayaan u arkaa Kenya waxaan ognahay in ay xogaa ay yaraysanayso Soomaaliya yani way iska caddahay sababtoo ah يعني markaad fiirisid qaabka ay xataa yani diblomaasiyadeed ay ula dhil garanayso wadankeena waxaad isleedahay waxay aaminsan yihiin ama maskaxdooda ka guuxaysa wadankan waa wadan yani dadkiisu tafraaro fara badan ku jiro madaxdiisa kala qaybsan tahay ee ka faa'iideyso marka Soomaalida waxay ku maamulada haddaad dhimanayso dharka waa la iska dubaa marka madaxda ugu sareysa dalka inay muujiyaan inay nool yihiin oo ay taaka ka mid dalka Soomaaliya aan si ciyaar ku dhiibin anigu waxaan aaminsanahay qof kasto Soomaali ah ama mucaarad ha ahaado ama muxaafid ha ahaado inuu dhiirigeliyo inay waajib tahay qofka ku faraxsan in maanta Kenya ay sidii caruurtii Soomaaliya ugu ciyaarto qof ku faraxsanna waxaan aaminsanahay inuu Soomaali ahayn حسنو barnaamijka soo gabagabeynayna ugu dambeyn waxa ku weydiinayaa dhalinyaradu ma leeyihiin urur ay ku midaysan yihiin tan labaad aan ku weydiinayana waxay tahay dhalinyarada door intee lag intii siyaasadda ay ku jireen maxaa la taaban karaa ay dhalinyaradu ay wax qabad ay sameeyeen iyo tala ahaan waxa dhalinyaradu uga tageen marka waa maasanta anzal anigu sida ila tahay dhalinyarada Soomaaliya urur hadda aan anigu ogahay oo ay ku midaysay anigu markaan dhalinyaro leeyahay hadee 55 iyo wax ka yar ayaan wala jeedaa xoogan waxaan saarayaa dadka maskaxiyan yani wanaagsan oo aan caadifad qabyaalad ku jirin wax soo bartay oo maskaxdooda ay furan tahay ayaan inta badan ka hadlaa markaan dhalinyaro leeyahay taas horta waxaan jeclaan lahaa inaan yar cadeeyo anigu saan ogahay maanta urur hadda jira oo dhalinyarada Soomaaliyeed raas kamboon raas caseer qurbaha meel kasta ay ku midaysan yihiin anigu hadda aan ogahay ma jiro laakiin saan hore kuugu sheegay labaatameeyo anagoo ah oo Yurub iyo wadanka gudihiisa iyo Kenya meel badan kala joogno ayaa barnaamij waxaan wadnaa ah in dadka wax bartay professionals loo yaqaano oo aan aqoonin eexda iyo qabyaalada iyo waxyaabas aan aqoonin inay midoobaan oo ay dadka wax ka bedelaan barnaamij ahaan hadda wadnaa oo aad loo soo dhaweeyo runtii oo aan rajeynayno mar dhow in xafladii lagu daahfuray ay Nairobi ka dhacdo ayaan rajeynaynaa insha Allah taas waa mid kale ee ah dhalinyaradu hadda door la taaban karo ma ka geysteen wadanka Soomaaliya waxaan ognahay madaxda Soomaaliya hadda soo wada martay ka soo bilaaw Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif ka soo bilaaw ilaa hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhamaantood waxa la shaqeeyay waa dhalinyaro hadda maanta bil Soomaaliya tagtid waxa bilicdeeda ka shaqeynaya waxa soo dhaweynteeda ka shaqeynaya maamuuskeeda wax ka shaqeynaya waxaas yani gadaal dadka aan arkayna kaambada gaasida ka shaqeynaya waa dhalinyaro laakiin dadku waxay arkaan ninkan siyaasiga ah ama wasiirka ah ama yani jagada kala haya ayay dadka arkaan laakiin maanta qofkii Muqdisho taga ama Garowe taga ama meel kale wadanka taga waxa ay hoosha wada oo yani fikradaha iyo aqoonta la yimid waa dhalinyaro laakiin ummadda Soomaaliyeed inta badan saas ma oga waxa laga yaabaa in la yiraahdo ninka dhalinyarada ah wuxuu la shaqeeyaa madaxweyne Hebel ama wasiir Hebel ama ra'iisul wasaare Hebel la shaqeeyaa intaas lagu ekeeyo laakiin yani qaabka iyo siyaasadda wadanka iyo jiheynteeda waxa ka shaqeynaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed waaye dhinaca kale xagga ganacsiga iyo hal abuurka waxa ka shaqeynaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed qurba hadda Muqdisho kala tusaalahan hadda ka yimid xaafado waxa jira ganacsiyada lagu soo kordhiyay dad aragtay asleeda ma Paris ay joogtaa asleedahay qaabkii uu nidaamsan tahay iyo wax walba aad aragaysaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadii fursad loo siiyo waxaan aaminsanahay wadanka inay aad iyo aad uga horumarin lahaayeen wadamo badan oo caalamka ah muddo 5 sano gudahoodna ay Singapore Soomaaliya Afrika ay noqon lahayd Soomaaliya ayaan aaminsanahay waxaan ku soo gabagabeyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ama qof kasta wax barto oo daacad Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa aan ku dhiirgelin lahaa in uu nala soo xiriiro organization-ka hadda aan rabno inaan ku dhawaaqno dhawaan si aan talooyin uga siino inuu nala soo xiriiraan waxaan rajeynaynaa oo kale in ay riski qaataan oo ay nafsadooda khatar u geliyaan badbaadinta ummadda Soomaaliyeed sababtoo haddii qof walba uu yiraahdo anigu waan soo shaqaystaa biilkayga waan haystaa meel labadan waan joogaa Soomaaliya boqolka sano soo socota saani ahaanaysa marka in riski la qaato oo wadanka dib ugu soo laabtaan oo ay nala soo xiriiraan oo aan annaga xataa u fududeeno inay wadanka Soomaaliya meelaha ugu wanaagsan ay soo arkaan ayaan kula talin lahaa xagga siyaasadda oo kale
dhalinyaradu haddii ay maanta ama Mareykan ama Canada ama Yurub ka soo tagaan oo ay Muqdisho yimaadaan waxay awood u lahaanayaan inay meesha madax laga maamulo wadanka ee Villa Soomaaliya ay indhooda ku soo arkaan anigu waxaan aqaanaa dhalinyaro soddonka dhaaftay oo aan weligood Villa Soomaaliya tegin oo wixii idaacadaha ay ka arkaan ama social media ka arkaan kaliya aaminsan laakiin qofka markuu wadan ku soo laabto oo uu arko qaabka ay u shaqeyso dawladda qaabka indhaha u kala furmaayo markay dhalinyaradu laba toddobaad Allah ka dhigo wadanka dib ugu soo laabtaan meel kasta joogaan ha soo arkaan qaabka siyaasadda Soomaaliya waxa ka khaldan ha arkaan waxa saxna arkaan waxay ka bedeli karaan ayaga hadhow la yimaadaan marka intaas ku soo gabagabeyn lahaa waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo marka la anzal وهاجاج عدد ما حسنتها إن حسن صدق الروح بدنا برامج كجلبت جلا قيب قادته يولي بفلقين هذا اللي يرده وحنا رجينا إياه إن أباب الكاس ودان هذا اللي يرده وحبرتين هذا اللي يرده بدنا كقيب قادن دونان إن برامج كنا جلبت وحاجة قيب قادن يا حسن إسماعيل محمد ولو يقان حسن سني برامج كنا واحد لسه عسين يساني جو أنسل حسين قرديره دنك كاميرا ده وعبد الرحمن واحد كجت جينا سلاسينا